kan cadowga hala kan saaran in laga xoreeyo oo aanu ka xoreyno haddaanu helo maamulka iyagoona horkacaya diyaar baanu nahay isma dugsanayno waxa weeye anay dileen hantidaydina waa qaateen waxaana iguma lahayn maalintaasaan qoriga qaatay qoriga qararta ii saaran maanta maalintaasaan qaatay waxay igu lahaayeen ma jidho inaan u gumo ma raba inaan iska dhiciyo baan rabaa inaan iska dhiciyo baan u baahanahay waxaan u baahanahay marka maamulkayga iyo xukuumaddayda iyo madaxweynahaygu inay ka isgarab taagaan waxaan u mahad celinayaa reer Afurur sida diiran oo kalgacal leh oo xiisaha leh ay annaga iyo ciidamadiiba noo soo dhaweeyeen aad iyo aad baad u mahadsan waanu filaynay idinka reer Afurur waad idinka aragnaa dawladda xiisaha aad u qabtaan aad baanu idinka aragnaa waana tusteen waxaan kaloo idin sheegayaa reer Afurur dib ha u dhaceen oo waxyaabaha ay ka cabanayaan noo sheegeen ha dib ha uga dhaceen inaad maanta magaalooyinka Puntland badidooda ugu nasiib wanaagsantiin ama bari ha ahaato ama Highland ha ahaato ama Sanaag ha ahaatee maanta dawladdii madaxweynihii meeshii tiriibkiisa ugu horreeyay uu soo baxo ogaada Afurur buu yimi oo ugu horreysay marka aad iyo aad baad u nasiib wanaagsan waxaadna garan kartaan ahmiyadda ay Puntland u leedahay Afurur ahmiyad weyn bay u leedahay waa taan noogu soo horreysay annagaan meel kale u bixin tiriibkii ugu horreeyaan soo baxo halkana koowiya haddii alla yidhi waxaanuna ku dadaalaynaa inaanay markii u dambaysay aanay noqon aanu ku soo noqnoqonno oo dawladdu ku soo noqnoqoto oo laga warqabo waxaan kale oo leeyahay waa kormeerkaas siyaaradaasay maanta inoo ahayd iswaraysigeennana waa yeelanaynaa odayaasha iyo gabdhaha iyo ciddii maxay tahay haysaba waanu ka qaadaynaa baahida waan ogahay horaan gudoomiyaha tuulada iyo odayaasha kalaanu saarnay iyo ciidamada iyo waa warkooda waanu helay waxbaa naloo sheegay waxaanu ballan qaadaynaa sida wasiirku uu yidhi wax allaale waxaanu qaban karro inaanan waxba kala hadhin baanu ballan qaadaynaa midna waa idiin sheegaya waad ogtihiin annaga waxa aad codsteen baa nalaga rabaa oo waajibaad baana saaran idinna waxbaa laydinka rabaa waxaan rabaa maanta inaynu ballantaa kala gallo waxa aad naga rabtaanna wixii karaana inaannu maxay ahaytoy iyadoo hagar la'aana oo weliba degdega aannu dib ula noqonnoo keenno wixii laydinka rabana inaad talo iyo guurtinimo iyo maxay ahaytoy wadajir aad ku fulisaan waxa idinku beegan ee waajibka aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan ku soo koobayaa madax baad taagantihiin ilaahay ha idin guuleeyo guul iyo farxad bay maanta inoo muuqata sidaas baan rajaynayaa inay inoo ahaato tuuladu waa tuulo maxay ahaytoy aad iyo aad potential u ah potential maxaa la yidhaahaa waa tuulo fursado badan leh in laga faa'iidaysto waxaa iman lahaa oo madaxweynaha anigu kusimihii baan ahay madaxweynihii waa idin mana laakiin safar shaqo ku maqan yahay hambaliyana waa idinka sidnaa iyo salaan waxa aanu idinkula hadlaynana waa wax aanu isla ognahay oo ka yimi waxaan jecel lahay meesha tani inay meel rasmi inoo noqoto ciidamadu sidaa u joogaan odayaashu saa uga taliyaan dhallinyaradu saa u shaqayso wixii xansho shaqana dib baynu ka dhigan doonnaa haddii alla yidhi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu